بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو وعنا وناكسن أخيار إيميل كستو الدنيا كجوكتان كسر هذا برنامج كان عافماتك مقعي قوة الدكتور عدعيد برنامج عافماتك تطبيقات كان وحان كجهل الدونا أرن آد حساسي أرن تاسي وحي قصيصا دقاتير تين الصوماليات sidoo kale waxay qusaysaa dadka bukaanka iyo qusaysaa sidoo kale waxay qusaysaa qof kasta oo doonaya markaas inuu soo booqdo goob caafimaad. haddaba intaanan u gudagelin arintaasi xasaasiga ah waxaan rabaa inaan ka hadlo taariikh ama qiso aniga qabsatay 2015 oo markaas xiriir la leh arrinkan. waxaan soo booqday qof xanuunsan oo ehelkayga ah. qofkii wuxuu ugu yiri birito dhakhtar baan ballan la leeyahay, waxaan doonayaa inaad i raacdid oo aad ila tagtid dhakhtarkaasi. waxaan ku yiri waa hagaag, subaxii anaa ku soo maraya ama adiga soo mar isoo wac salaada fajr kadibna waa israacaynaa, waxaan u tagaynaa dhakhtarkaasi iyo xabashadaada ayaan kula soo ogaanayaa. sidii baa dhacday, ballankii baa oofinay. subaxii meeshii ayaan tagnay sida caadiga ah. qofka number ayuu leeyahay. waxaan fariisanay meeshii feelka ah. markii waqtigeena la gaaray ayaan gudaha galnay. markaan galnay gudaha waxaan ku arkay dhakhtar Kenyaati ah, ka yimid dalka Kenya, u dhashayna dalka Kenya. waxaa ag fadhiya oo geeskiisa midigta fadhiyana qof Soomaali ah oo turjuwaan ah. qofkaasi wuxuu ku hadlayay luqadda Swahiliga, sidoo kale wuxuu ku hadlayay luqadda Englishka. adiga markaa wuxuu u kala turjuwaanay qofkii aniga ila socday oo bukaanka ahaa iyo dhakhtarkii. qofka turjuwaankana dhexda buu fadhiyay. marka dhakhtarka si fiican buu sameeyay, history ayuu markaas ka qaaday. history macnaheedu waxa waa taariikhda qofkan cabashada iyo waxyaabaha uu ka cabanayo iyo xanuunkan inta muddada uu soo hayay. qofkaasi markaas aniga la socday wuxuu ka cabanayay gas badan ayaa hayay, gastritis baa hayay. marka dhakhtarkii wuu gudbiyay. dhakhtarkii markaasi wuu dhageystay. kadibna markii history uu dhamaaday baa ninkii wuxuu yiri ninkan ma garanaysaa. waxaan ka gartay najwa wax noocaasa, laakiin xogaa iska fahmay ee dhakhtar dictariani waxaasan ka fahmay. kadibna waxaa dhacday dhakhtarkii iyo qofkii intaysan isku jawaabin ba aniga markaasi soo dhaxgalay. waxaan ku yiri aniga hawsha inaan dhaxgala ma rabo, qofka historygiisa markaasi si fiican uga qaada. dhakhtarka markaasi wuxuu haystay computer ayuu haystay. computerkii ayuu la soo kala baxay, wuu daaray, fiilo ayuu meesha geliyay. fiiladii wuu soo qaaday, wuxuu kaga xiray faryarada iyo fartaas ayuu kaga xiray. kadib computerkii buu meel ka daaray. beerkii baa muuqanaya, kiliyii baa muuqanaya, maskaxdii baa muuqanaysa, sambabadii ayaa muuqanaysa. markaasi meel kasta oo jirkaasi ayaa soo baxay. dabcan qofkii wuxuu ku yiri kiliyahaada xoogaa yar infection baa ku jira, beerkaada wuu fiican yahay, maskaxdaada waa xoogaa yar daal baa ka muuqato, waa inaad hurdo badan seexataa. dabcan wuxuu yiri lacag $65 weeyaan, waxaana si fiican usii fiirinayaa calooshaada. calooshii buu ku dhuftay. meeshii calooshii buu markaasi wuxuu tusay sida suurkaasi ina muuqdo qof alsar qabo oo boog yar ku taala meesha. ayuu yiri boogtaasi ayaa waxay ku taalaa calooshaada. marka waxaan kuu qorayaa dawadaasi waa inaad qaadataa 3 bilood. wuxuu u qoray dawo la yiraahdo omeprazole 20 mg oo qaadanaya 3 months. kadibna cuntada ka horna waa inuu cunaa 20 minutes before cuntada, waa inuu markaasi uu kaniinigaas liqaa. lacagtaadi waxay isku noqotay lacag $100 ah. $100 buu yiri bixiya. waxaan ku yiri niyahow su'aal yar baan ku weydiinayaa, computerkan aad haysatid ma lagu ogaan karaa kiliyahaada, sambabadaada, maskaxdaada dhammaan? ma waxa lagu ogaanayaa computerkaas xarga ka soo baxay meeshaas aad ku xirtay? xitaa aniga miya ugu dayday. waxaan ku yiri waxaan suurtagal ma ahan baan ku yiri. been baa sheegaysaa, dadkana waa dhacaysaa, lacagtana xaq uma lihid. hadeertana waa ku dacweynayaa. adii markaasi waxa dhacay qof mas'uul ah oo markaasi gobolka caanka ah ayaa meeshii markaasi joogay oo meeshana lahaa. qofkii baa yimid, qofkii baa ila hadlay. wuxuu ugu yiri arrintan waa xalinaynaa, baaritaan baan ku sameynaynaa, annagaa jawaab kusoo siinayna sug. waxaa dhacday lacagtii maanan bixinin. dawadii qofkii meeshii ayuu ka gatay, waan ka tagnay. sababtay tahay macquul ma ahan, suurtagalna ma ahan computer in lagu ogaado xubnahaada oo dhan. haddaba 2 beri kadib 3 beri kadib ninkii meeshii uu ka tagay.
gobolka dhan buu ka tagay. Yani waxay sameeyaan dhakhaatiirta noocaas oo kale waxay sameeyaan 3 bilood waxay joogayaan Gaalkacyo, 3 bilood waxay joogayaan Hargeysa, 3 bilood waxay joogayaan Baydhabo, 3 bilood waxay joogayaan Kismaayo, 3 bilood yani way yani meel kasta markay lacag ka helaan bay kadib waxay ku noqonayaan dalkooda Kenya. haddaba arrinta aan u dan leeyahay oo xasaasiga ah waxay tahay oo adiga bukaanka ah, adiga dhakhtarka ah, adiga maxaa la yiraahdaa dalka u dhashay muwaadinka ah ma ka yeeli kartaa arrintaasi? su-aashaasi waxay tahay waa maya. marka haddaba macquul ma ahan, suurtagalna ma ahan computer wax lagu qorto, wax laga daawado, maxaa la yiraahdaa Facebook laga galo, YouTube laga galo, markaasi in lagu yiraahdo jirkaada xubnihiisa waxaa sheegaya computerkan ayaa sheegaya. xubnahaasi haddii la rabo in la fiiriyo waxaa loo baahan yahay in la isticmaalo ultrasonka, waxaa loo baahan yahay CT-ga, waxaa loo baahan yahay in la isticmaalo MRI-ga. kadibna markaasi qofka waxaa loo soo bandhigi karaa xubintiisa meesha ay ka jiran tahay iyo xubintiisa inay caafimaad qabto. laakiin suurtagal maahan in computerkaasi caadiga ah oo la isticmaalo, aniga kan hadda inta isticmaalo fiilo geliyo kugu xiro program ku daro aan ku ila kaliyahaadi wakaas wadnahaadi wakaas babadaadi wakaas $30 keen, suurtagal maahan. marka ururada dhakhaatiirta, waxgaradka, aqoon-yahanada, dowladda, shacabka, dhammaan wax kastoo waxgarad ah arrimahaasi inay ka digaan oo dadka markaasi uga digaan wax muhiim weeyaan. sidoo kale waxaa loo baahan yahay qofka bukaanka ah markuu u tagayo dhakhtarka waa inuu u sharxaa bukaanka waxa uu ka helay.